dhawaan ay ahayd markii la soo bandhigay saamiga dekada berbera ay ku yeelan doonaan dawladaha Somaliland, Ethiopia iyo sidoo kale shirkadda DB World. Haddaba shirkad jireed oo daaran taageerada maalgelinta shirkadda DB World ee dekada berbera ayaa mas'uuliyiinta heer gobol, heer degmo, xildhibaanada gobolka Togdheer iyo sidoo kale cuqaaliyo odayaal ka soo jeeda gobolka Togdheer si gaar ah ugu qabteen xarunta maamulka gobolka Togdheer, iyagoo sidoo kalena fariin adag u diray madaxda dawladda Soomaaliya oo jaamacadda Carabta u gudbiyay inay hor istaagaan maalgelinta dekada berbera ee shirkadda DB World. Ugu horreynba mas'uuliyiinta gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco iyo sidoo kale xubno ku hadlay afka xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco oo shirkaasi jireed ka hadlay ayaa soo dhaweeyay maalgelinta dekada berbera iyagoo fariin adag u diray dawladda Soomaaliya oo sheegay inay faraha kala baxaan danaha qaranka Somaliland iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa kamid ah hadaladoodii sida tan dagaalkeena waa garanaysan kuwa hadlaya imka Carabta ah ee mataqaan ku shiray halka ee arkaya markii dawladaha ay rusheynayeen kuwina daawanayeen markii uraqabataynteena lagu hayay kuwina daawanayeen markii meedkaygu suuqyada yilay kuwina daawanayeen maxay maanta u arki waayeen maanta oo taangiyo lagu ilaaliyo farmaajiye qeyre oo midna mareexan yahay midna uu yahay nimanka la yiraahdo maxaan ku raadin sabti iyo foolcus aydan garanaydu sida gobolka Togdheer maamulka xamar waxaanu leenahay go'aanka dagaalka aad iclaamiseen sida madaxweynuhu sheegay wayno iyo gudoon sheegay ninka maayarka Muqdisho ama barasaabka meelaha wuxuu injineer ciyaal wuxuu yariiso ciyaalku isku mid waa ciyaalo waa injineer ciyaal wuxuu yiri xaasidnimada hatta kuwii la Soomaaliyada ahaa xaasidaya wuxuu yiri suurtagal ma aha in garoowe iyo Hargeysa nabad ahaadaan Muqdishona ay nabad ahaan wado suurtagal ma abuud waa dadka bila aqliga weey dadka hatta kii la joogay uga ba'aya war garoowe ama amaanba ma yaal wasiirada lagu dhaxlaaya xildhibaanada lagu dhaxlaaya markaas halka la iska mara inta yar ay haystaan yarkan Cabdiwali Gaas inta yar uu haysto ayuu xitaa u quuri laayay bal iska daa Somaliland horta dadku waa nooca waa dadka inuu jawaabayna injineer ciyaal waa dadka aqliga leh noocaas midna waan idin sheegay dagaal dhici maayo dagaalna soo qaadi maaya laba xaalabo soo qaadi maayaan nabarkii 1991 halkan kaga dhacay wali uma bogsan caruurtii iyo dumarkii halkan ay kaga yaaceen wali qaar baa joog raga caruurtoodii ka yaacay Burco kaga cararay ee Hargeysa kaga cararay ee berbera kaga cararay ee Cergaabo kaga cararay dagaal maanta uma baahna way yaqaanin dadka reer Somaliland cid la dagaalami karayo ay ku soo noqon kareen inaan ahayn waxay kala ogyihiin ciidanka reer Somaliland waxaan aaminsanay uqsamo billaahi alcadiim 7 cashay xamar ku gaadhay sida markay tahay waxaynu u baahannahay cid kasta oo aynu u aragno inay faa'iido iyo maslaxad ay ugu jirto qarankeena aynu la saxeexan karro ama la gali karro heshiis maalgashi heshiiska maalgashi oo aynu marinayno hay'adaha sharciga u leh inay ansixiyaan sida golaha wasiirada ee xukuumadda baarlamaanka guurtida heshiiska shirkadda DB World wuu dhamaystirmay shuruudihiisii waana ay soo wada mareen hay'adihii ku shaqada lahaa waana wada ansixiyeen sidaas aanu ku dhaqan galay dhammaan mujtamaca jamhuuriyadda Somaliland gudaha iyo dibadda weyn soo dhaweynay dhinaca kale cuqaashiyo odayaasha ka soo jeeda gobolka Togdheer oo iyaguna dhankooda ka hadlay ayaa taageeray maalgelinta dekada berbera sidoo kalena fariin adag u diray mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya iyagoo arrimahaasi ka hadlay waxa kamid ah hadaladoodii sida tan war shacabka reer Somaliland waa aragtaan in Somaliland lagu soo duulay in la idin yiri waxba qabsan maysaan wax la idin ma ogola gobonnimo ma yeelan kartaan dal ma yeelan kartaan berbera ninka wala weyn ee xamar jooga ninka wala weyn ee xamar jooga inuu yiri waxba talaabo ma qaadi kartaan waa aragtaa waxaan la horta cadaawada u midooba shacabka reer Somaliland taasaan iyaga waxay u diraya ishii kaliya aynu lahayn reer Somaliland waa tan lagu soo duulay inaguna danteena raacayna cid allaayo cidiina danaynaysa ee hantiina gashanaysa aynu ku noolaanayno saaxiib noqonayno waa raacayna anagu
وعبد الرحمن عيسى تلفزيون عالمي Somali Cable مقالة برعو.